السلام عليكم وعيد السلامي ومع العباس waxaynu bilaabaynaa koorso cusub oo ah dhigashada luqadda Ingiriishta waa koorso dhameystiran casharkeedii koobaad ayaynu bilaabaynaa maanta waxaanu ka bilaabaynaa personal pronounska ama magacyaalada sida isaga iyada annaga oo kale ayaynu ka bilaabaynaa sidaas ayaynu socon doonaa casharka labaad ka saddexaad ka afraad waxaa laga yaabaa inaad casharka koobaad oo kale u tixgeliso ABCD waxaa laga yaabaa qaar idin ka mid ah inay door bidayaan in laga soo dhigo maxay ABCD haddii aad u baahan tihiin commentiga igula soo wadaaga waxaan ka soo diyaarin doonaa cashar tafatiran ABCD-da waayahay aan casharkeena usoo laabanno subject pronoun iyo object pronoun ayaa halkan inagu yaala qaybta koowaad ayaan ku horeynayaa subject pronoun muxuu yahay subject pronoun waxa weeye waa ficil sameeye hadda ma garateen halkan liiskan waxa ku yaala he baa ku yaala she baa ku taala it baa ku taala he marka lagu raahdo waa isaga waxa ka soo horjeeda him ayaa ka soo horjeeda him iyo he maxay kala yihiin waayahay he iyo him waxay kala yihiin midna waa subject midna waa object tusaale ahaan oo kale markaad leedahay isaga ayaa ila hadlay ficilka ayaa sameeyey isaga ayaa sameeyey he isagu talking to me anu ila hadlay hadda ma garatay halkaa waxaad ka fahantay qofka faacil sameeyaha ficilka sameeya ayaa waxaa la yidhaahdaa subject qaadanaya xagga dambe gelayayna object ayuu noqonayaa tusaale taas bay ahayd aan ka soo laabto haddaba liiska ayaan akhrin doonaa he waa isaga she waa iyada it waa wixii aan noolayn non living things sida ashyaadoo kale dhul cir markaad sheegaysoo kale it baad isticmaalaysaa aad tiraahdo it was a beautiful opportunity waxay ahayd fursad qurux badan fursaddu ma wax aqli leh waa may waayahay waxaa ka hooseysa day waa iyaga we waa annaga sidoo kale I waa aniga you waa adiga liiska kale haddaba aan akhriyo he baa ka bilaabaysaa he waxaa ka soo horjeeda him isaga waa isagu markuu ficilka lagu sameeyo ama mafcuulka uu yahay tusaale ahaan haddaan tusaale kaa siiyo anaa la hadlay isaga I talked to him isagaan la hadlay I am the one who did the action anigaa ah ka sameeyey ficilka marka isagu muxuu noqonayaa ficil lagu sameeye him ayuu noqonayaa markaa I talked to him isagaa ayaan la hadlay markastoo xagga dambe ay uu galo oo uu xagga dambe galo wuu isbedelayaa he oo him buu noqonayaa liiskuna waa saas oo kale u daadeg she baa ku taala meesha hair bay isu bedelaysaa maxaa ku taala meesha it isma bedelayso maxaa kale ku yaala day iyaga dam ayay noqonaysaa markaad leedahay iyagu wayna casuumeen ama iyaga annagaa casuumnay maxaad odhanaysaa we annagu invited them iyagaanu casuumnay iyaga markaa ah dadkii martida ahaa ee ficilka lagu sameeyey qaabkaas ayuu u dhacaya waad fahantay waayahay day objectkeedu waa dam ayaan marayey maxaa ku xiga day waxaa ku xiga oo liiskeena inoogu yaala we annaga we haddaba markay objectka noqoto as bay ku taallaa waayahay haddana maxaa ku yaala I aniga me bay noqonaysaa xagga kale waxaa ku yaala ugu dambaysa you isma bedesho intaa inaad ila fahantay waan jecelahay waxaan ku soo khatimayaa hal mid oo aan exercise idinka dhigi doono English markaan doonayana ku raxdo idinka waxaan isticmaalayaa aad ayaad u mahadsantihiin ardayda dhammaantiin